Manchester United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay heshiis la gaadhay kooxda Juventus si ay ula soo wareegto xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo, midkaasoo horey uga soo dheeli jiray kooxda Manchester United muddo 6 sano ah. Sidoo kale Cristiano ayaa soo macasalaameeyay taageerayaashiisii reer Juventus. Ronaldo ayaa la filayaa inuu saxiixo heshiis 2 sano ah oo kaasoo ka dhigaya inuu noqdo ciyaartoyga ugu mushaharka badan horyaalka English Premier League, waxaana hadda la sugayaa oo kaliya inuu maro tijaabada caafimaadka iyo sidii uu soo gaari lahaa dalka Ingiriiska magaaladiisa Manchester United. Waxaana la filayaa inuu heshiiskan soo gabagabeeyay ama soo dhaweeyay macallinkii hore ee kooxda Manchester United ee Sir Alex Ferguson maanta gelinkii hore ee Jimcaha, markii uu khadka telefoonka kula xiriiray Cristiano Ronaldo oo ku yiri intii aad ku biiri lahayd naadiga oo xifaaltanku naga dhaxeeyo, waxaan kugula talin lahaa inaad ku soo noqoto kooxdaadii hore. 36 jirkan ayaa ku soo laabanaya kooxdii uu 12 sanadood ka hor ka tagay ee Manchester United, wuxuuna qayb ka noqon doonaa safka tababare Ole Solskjaer oo ku dagaalgali doona xilli ciyaareedka 2021-2022. Manchester United ayaa 7 sano ka maqnayd horyaalka English Premier League, waxaana la filayaa inay sanadkan yahay sanadkii ay Manchester United ku guuleysan lahayd koobka, waxaana hubaal ah in uu Cristiano magaciisa ku saxiixi doono goolal badan, waxaana ka garab ciyaari doona ciyaartoy badan ay hadda ka hor soo wada ciyaareen sida Varane oo muddo 5 sano ah ay ka soo wada ciyaareen kooxda Real Madrid ee ka dhisan horyaalka Isbaanishka, Bruno Fernandes oo ay xulka qaranka ku wada matalaan dalkooda. Kadib heshiiska ay la gaadhay Manchester United, laacibkeedii hore ee Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay muran la xiriira nambarka uu xidhan doono kooxdiisa Manchester United. Waxa uu xidhan jiray 6 sano ee hore nambarka 7, waxa uuna kooxdii Real Madrid iyo Juventus iyo weliba ama qarankiisa uu xidhaa nambarka 7. Macquul ma tahay in nambar 7 ay Manchester siiso? Cristiano ayaa 6 sano ee u dhaxaysay 2003 ilaa 2009 waxa uu Manchester United u xidhan jiray nambarka 7, laakiin hadda waxaa haysta Edinson Cavani oo sanad kale oo heshiis ah u saxiixay xagaagan, midaasoo ka dhigaysa inuu xilli ciyaareedka sii joogo. Kee ayaad isleedahay uu xidhan doonaa CR7? Ma heli doonaa nambarkiisii hore mise waxaa la siin doonaa nambarkii uu watay markii uu yimaaday Manchester United ee ahaa nambar 28? Qaybta commentiga noogu reeb fikirkaaga. Waad ku mahadsantahay daawashadaada.